qaababka ay shareecadu arrintaa uga jawaabtay runtii ay mowqif adag uga istaagtay waxaa ka mid ah xad adag bay ka dejisay oo raadic ah oo dadka waxyaalahaasi ama hunguriyeynaya ama dhaqankoodu inxiraafay waxyaalaha noocaasa inay ku kacaan doonaya wax zajriya oo hor istaaga oo caabiya oo xad ah ayay shareecadu u samaysay laba xaalay culimmadu u kala qaadaan arrinta kufsiga dumarka la kufsado midi wax weeyaan inuu ninku ama raggu ay kufsadaan dumarka iyagoo marka aan hub isticmaalin oo aan yacni wax weeyaan hubku noocu dooni ha ahaado saan u tegi doono haddii uun muxuu ahaayey xoog kaliya si kale ay iyagoon xoog yacni aan hub u isticmaalin marka ay ku kufsadaan mas'aladaasi culimmada qaarkood waxay leeyihiin waxaa waajibaya xadka zinada ee shareecadu u dejisay gabadhana waxaa u laasimaya dhibaatadii gaadhay in laga xaalmariyo oo meher bay yeelanaysaa sida ay qabaan alimaamu shaafici imaamu maalik iyo alimaam axmed ibnu xambal xanaabilada madhabka culimmadu u badan yihiin baa sidaasa gabadhii dhibkii gaadhayna in laga xaalmariyo oo meher la siiyo dhibkii la gaadhayna muxuu gaadhayna xuquuqdeeda la bixiyo ninkii dhibkaa ku sameeyey ama rag badan hadday yihiinna markaasi xadka shareecada la mariyo oo haddii guur u horreeyeyna dhagax lagu dilo haddii uusan guur u horreyninna 100 jeedal in markaa lagu dhufto raggiina in halkaa la mariyo miskiintan la qasbay ee la kufsadayna in markaasi sidaa loo xalmariyo waa haddii falkaasi aan hub loo isticmaalin oo aan hadidaad iyo cagajuglayn iyo hub iyo haddaan loo isticmaalin xukunku sidaasuu noqonaya haddiise kufsiga loo isticmaalay hub loo isticmaalo oo maalan waxa weeyaan xooggaasi uu la socday in hub loogu cagajugleeyo hubkaasi siday culimmadu u badan yihiin xataa ul ha noqdo xataa dhagax ha noqdo sida uu qabo imaamu shaafici maalik xanaabilada abu yuusuf iyo abu thawr iyo ibnu xasmi culimo badani siday qabaan waxay leeyihiin xaaladaasi markaa zino way ka koraysaa oo keliyata kufsi uun la zinaystay ma ahee markaa waxay noqonaysaa masalada la yidhaahdo xiraabadana waxaa la yidhaahdaa in uu ruuxu amniga khalkhal geliyo jidgooyo sameeyo uu noqdo ruux mujtamacii iyo deganaanshihii iyo nabaddiisii iyo isu socodkiisii iyo xoolihiisii iyo khatar geliya kaasuu markaa noqonayaa gaar ahaan marka uu muxuu ahaayey dhaawac iyo dhib la yimaado arrintaasi marka waxa way ka gedisan tahayoo waxay markaa gelaysaa aayadda qur-aankee alla yidhi tabaaraka wa tacaala innamaa jazaa'u aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascuuna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqataca aydiihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alard dalika lahum khizyun fi ddunyaa walahum fi alaakhirati cadaabun cadiim xiraabaa la yidhaahdaayo waa dadka jidgooyada sameeya waa dadka booba waa dadka muxuu ahaayey nabadgelyadii amniga khalkhal geliya waa dadka xoog iyo hubka dumarka ku kufsada dadka noocaasoo kale ama magaalo gudaheeda ha ku jireen ama bannaanka ha uga baxsanaadeene kuwaasi muxaaribiin baa la yidhaahdaaye xukumkii zinada xukum ka khatarsan bay leeyihiin oo rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay kuwaasi abaalkoodu waxa weeyaan horta waxaa laga dhigay ilaah iyo rasuulkiisay horta la dagaalamayaan li'anna waxa weeyaan tacaaliimtii diinta ilaahay soo dejiyeyna dagaal bay ku sameeyeen ummaddii tacaaliimtaa haysatay oo muslimka ahaydna dagaal bay ku sameeyeen sidaas daraaddeed allah iyo rasuulkiisay la dagaalameen dhulkana fasaad bay ka shaqaynayaan oo gabdhihii sharafta lahaa iyo hablihii qiimaha lahaa iyo xoolihii iyo nabadgeliyadii iyo naftii bay khatar ku hayaan sidaas daraaddeed dhulkiina fasaad bay ka shaqaynayaan oo wadaan dadka noocaasoo kale a alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaalaa abaalkoodu waa in la laayo in la deldelo in la googooyo gacmahoodiiyo lugahooda si isdhaafa loo gooyo in
muxuu ahay dhulka laga masaafuriyo oo la nafiyo taasi waa abaalka ay adduunka ku leeyihiin aakharana cadaabu weyn bay leeyihiin buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed wadaadada qaarkood waxaa isaga khaldama zino laba ruuxoo raalli isagaa ay sameeyeen waa dembi culus waa mid in muxuu ahaayey loos isticmaalo iyadoon hub iyo xoog iyo la isticmaalin haweentii la qabsado masaladaasi waa masalo kale in dumarkii xoog loo isticmaalo hub loo isticmaalo tooriyo loo qaato hub loo qaato sidaa lagu kufsadaayey isku mid maaha masaa-ishaasi way kala culus tahay wayna kala xugum gedisan tahay masaladaa dambe inay sidaas tahayna a'imo badan baa qaba oo xiraabo inay hoos tegayso masaladaasi abaalkooduna uu sidaa yahay in la laayo in la daldalo in gacmaha iyo lugaha si isdhaafa loo jaro arrintaasi kolba tii axkaamta iyada ah dhibkani ku joogsanaya maslaxada u muuqato in la qaato oo la mariyo taa ayaa waxay tahay qolyahaasi xugumkooda waana sida ay ku imaanayso fatwada hay-ada culimada u sarreysa sacuudiga almamlaka alcarabiya sacuudiya oo uu ra-iis iyo madax u ahaa asheykhu alcallaama alimaam ibnu baaz caleyh raxmatullah sidanoo kaleeto ayay arrinta go-aan uga soo saareen waxay yidhaahdeen jaraa-imta khadfiga iyo sadwiga yacni wax weeyaan dafidda dumarka la dafayo boobka la boobayo xoogga lagu kufsanayo la qasbayo waxay ka mid tahay min duruubi almuxaaraba ilaahay rasuulkiisaoo lala dagaalamay bay ka mid tahay wasacyi fi l ardi fasaadan dhulkoo fasaad laga shaqeeyay dhexdiisay ka mid tahay oo mudan markaa cuquubada ay aayaddaasi sheegtay aan soo akhrinay oo nafta iyo maalka iyo cirdiga iyo jidka iyo dadkiioo la cabsi geliyo arrintaasina waxay leeyihiin farqi ma leh hadday magaalo ka dhacdo hadday tuulo ka dhacdo hadday baadiye ka dhacdo hadday isku mid weyn bay leeyihiin sida xoogga badan aaraada culimmadu ay mas'alada ka qabaan bimacnaa wuxuu ka wadaa waxay ka wadaan waa masalo fiqiyaho culimmada qaar baa waxay yidhaahdeen marka xukunkaa la siinaya xiraabada waa inay ka dhacdo baadiye iyo jidadka cidladaa iyo meelaha ay ka dhacdo wey qaar baa shardigaa ka dhigay laakiin shardigaasi sida raajixa ah shardi ma aha xataa hadday ka kacaan magaalada dhexdeeda kooxa noocaasa sida kuwii faycali la dhihi jiray iyo kuwa meelahan hadda annagoo noo joogoo la yidhaahdo muxuu ahay nairobi nala joogoo suberpower la yidhaahda iyo kuwaasi gabdhaha magaalooyinka ku kufsanaya ama xoolaha xoogga ku qaadanaya iyo qolyahaasi magaalaha ka dhacday iyo magaaliya baadiye ma kala leh cumuumka aayadana saasaa laga fahmayaa oo aayaddu ma kala qaadin magaalo iyo baadiye ma kala qaadin bal marka qaarkood say culimmaduna waxaa laga yaabaa dhibaatada magaalada markii lagu sameeyo arrinta dhibaatadu inayba kasii darnaato sidaasi waxaa qaba magaalo iyo inaan baadiye la kala qaadaynin alimaamu shaafici xanaabilada sidoo kale abu thawr waxaa sidoo kale maray awsaaci iyo leyth iyo maalikiyadii daahiriyada madaahibta culimmadu u badan yihiin madhabkaas weeye marka magaalay ka dhacday iyo baadiyay ka dhacday ictibaar ma leh koox guruub ah oo hubaysan oo gabdhaha kufsanaya oo dadka dhacaya oo amniga khalkhal gelinaya kuwaasi waa muxaaribiin way xiraabada xukunkeeda ayay leeyihiin sidaasi ayaa culimmadu ayay fatwaanayaan masaladana saasay u xoog badan tahay xukunka adag ee dilka ee daldalka ee gacmaha iyo lugaha hala jara ah shareecadu waxay u qaadatay weliba lagu bilaabay inuu ruuxaasi abtirkiisii islaamka xataa laga qaado oo la yidhaahdo ilaahay rasuulkiisuba la dagaalamayba la yidhaahdaayey heerkaa waxaa loo gaadhsiinaya jariimada iyo dembiga culus arrintaa culayskeeda leh waa arrin fool xun waa arrin runtii yaqsi leh waa arrin aan runtii waxwey loo gegsan karaynin inay mujtamac muslima dhexdiisa ku soo noqnoqotana waxay tilmaamaysaa fasaad iyo khalad weyn oo ka jira mujtamaca dhexdiisay tilmaamaysaa